سنة may adiga المهندسي. اوكي ورورتا الحمد لله شكري إلهي هورta isha dumarka iga weeciyo qof aniga fikirkiisa ma soo qaadan qofna kumaan jeedin waxaan ka hadlay fikir qol ka socday oo arin aniga markaas aan maskaxdeyda gujiyay aanan ka hadlay sidii aniga dareenkaygu ahaa laakiin naagu safiicaasha iga daba dhahaan waxay micnaha ay ka turjumaysaa inay maskaxdooda gujin waayeen waxna ka keensan waayeen haddaba mid kalaan haddana oranayaa oo maskaxdeyda aan ka keena ayagona tooda aan daba raacayn horta aniga qof weyn baan ahay alxamdulilah way soo jireysay in badan adduunka ka soo ceeshtay maaragtay Soomaalidana maqal badan iyo waayo badan dhexdooda ka maaragtay maskaxdeeda ay ku hayso waxaan u soo joogay horta Soomaali oo maaragtay isku aftirsata isku Google fariisata maxay ahayd guurkuna uu macno badan uu joogo abna la isku guursado iyo awoowe midna way jirtay oo gabar la iska ceersado de suuq taagan oo macno badan ku fadhina way jirtay haddaba guurkii kala macno badan marka guurku uu macno sameynayo oo sida geenyadaas oo kale sharafta leh ee magaca leh ee muunada leh waa loo soo shaashada qaraca walaalayaal 1900 baatii ku soco okay reer u qalmana way guursan jireen haddaba farxiye fiiska guurkii maantay maxay ahayd uu ka qaldamay no matter what sidee doontaha ku dhacdo oo sidee doontaha ahaato ma oranayno sidee ku dhacday waayo waa arrimo ilaahay inay wax walba dhacaanba accept garaynayna gabadhaas ama anu ma oranay ninku waa xanuunsan yahay dhakhtar maana geyn afkiisana ma fiirsanin oo aniga sariir la jiifsan maayo danka malihi laakiin mid baa jirto inuu sana lafano inay u guursanin maxay ahayd maalna ayna u guursanin intaba waan cadaynaynaa gabadhaas sida doontaha ku timaadee inay inqilaab ama minallaahiye ay ka timid ama maxay ahayd maskax dooriye lagu sameeyay ay ku timid baan anigu kulay ku saleynayaa sidee gabadhiina adeerteeda saaxiibadeedna ay ku salaysay mid kale oo meeshan islaamu islka la qabanayeen oo uga jawaabaya hawiye horta hal iyo laba maaha Allahumma salli ala Muhammad waa Soomaali reerka ugu salka balaaran nin walbaana waa laga helaa hadee qabiilada Soomaaliyeedna nin ka dhuma lama waayo anagana nin laga dhuma lama waayo soo hadii la isku lafatirsanayana leeyahay meeqa reerkaas ka dhuntay hadda anaga laftirkay qaar naga adinkana qaar niga luma waa heleena ansa waxaan taaganahay live fan ku jira ana lambarka soo qaraacaya Safiya waxaan soo qaraacin live fan ku jira asal ku ahaa gabooyo waa laandheero dhalay asagu laftirkiisa wiyo inuu guursado inuu diyaar u yahay lama weydiin waa dad Soomaaliyeed oo diin leh oo dhaqan leh waxaan daawaday wiil gabooyo oo aad u qurux badan oo TikTok soo gala wuxuu yiri waxaan aaminsanahay inaan hawiye guursan inaan daarood guursanin inaan gabaran gabooyo ahaynba inaanan geyin baan u arkaa buu yiri sidaas darteed anaguna sidoo kale ayaan aaminsanay niyo gabooyaha laftirkooda ayaguba dadka way yasaan oo nin walba iskama guursadaan dhaqan bay leeyihiin oo diin bay leeyihiin oo maxay ahayd reer walba iyo gayaan bay leeyihiin marka micnaha ma aha inaa aniga kaliya wax yasahay ayaga laftirkooda yasmada way ka timaadaa inayna anagana guursanaynin waxaana awooyaashan baa noo sameeyay marka inay islaan xunta halkan soo fariisato ay tiraahdo reebelo ma guursata aniga ma dhibaan weyla dhashaa la yiri sida hadda maaragtay markii horta maalin walba waan sii tadawaraynaa oo horumaraan sii gaaraynaa sida adduunku hub u samaysanayo oo ayaa dadkuna u sii barakoobayaan aniga ilaahay baan ku dhaaranayaa weligay Allah ma maqli ma dhibaan hawiyaas la shay hawiyaha qaar baana xatay bariga hore aqoonin niyahow qabiilka inta ugu badan waxaan ku baranay miidiyaha qabiilla aan weligan maqlina miidiyaha ku baranay haddaba sida la iskula dhasho dhanna ma aqoon way baahino ma haynin si familiyahan u deganayn family baan aaminsanaa aniga hadda aan ku sheegay wallahi billahi tallaahi maxay ahayd reer hoosaan aaminsanaa dad kale inay nool yihiin dunida dusheedu maan arkaynin jaahilnimada iyo socod la'aantayna ka mid tahay marka aniga awowgay ma guursan jirin qolada gabooyo la yiraahdo gabooyo awowgoodna hawiye ma guursan jirin ma fahant
mana la isguursan jirin maantana diyaar ma nihin inaan guursano ayaguna diyaar nooma wiilkaasna wuu qaldan yahay gabadhaana way qaldan tahay hadday caafimaad darro ku timid iyo hadday fiyoobi ku timid farxiyo fiska wiilkan uma qalanto aqliga saxdaana wuu u jeedaa haddaan la is-indhadamaraynin oo indhaha la iska ridaynin farxiyo waa gabar qaaliya waa fanaanad weyn waa fanaanad cod halaasiya leh geyga soomaaliyeed ka gadantay naagaan dhuqdhuq iyo balaayo ku jirin umana qalanto kor iyo hoos uma qalanto laakiin safiya uma qalantaad ku soo celinaysaa saw shayga jacayl iyo la yidhaahdo ma jirto saw calafku ma jiro saw ma aaminsanid maxaa keenaya uma qalantiya waxan saw calafka ma aaminsan calaf wax la yidhaha jacaylku mehergab dadka ku dhacaa jacaylku muuna ahay shayga calafka la yidhaha aaminsan tahay haa ama maya calafka ma aaminsan tahay inuu ilaahay labada qof isku qoraysanaya ma aaminsan tahay aniga calaf ma aaminsani waxaa aaminsanahay dooqa aniga inaan go-aanka naftayda laya aaminsanay marka aqalga sameeyo waa waxyaabaha dadku ay yidhaahdaan calaf baa dhacay calafka hal su-aalan ku weydiinayaa labada qof ee isguursanaya ee matalan isdooranaya ama wada sheekaysanaya inay labadaa qof isguursadaan ayaa qora xaggee laga qoraa xaggee laga qoraa safiya intaa sheeg laba qof amiga isguursaday iyo kala dheer waxay kala joogaan Mareykan iyo wadankiiba kala joogaan way shukaasadeen in labadaa qof ay calaf isku yeeshaan ay ubad isku dhalaan ayaa qoray ii sheeg intaa horta ilaaha wax walba ilaaha qoray firistan ani ilaa afka ii gelin laakiin qofku dooqiisa asaga iskale aniga maanta baa waxaa xumaatada igu sameeyay waan ku salaamaya safiya ma aaminsanid qoraalka alla waan ku salaamaya raalli ah soo aamin qoraalka alla inuu ilaahay qoro soo aamin horta kabacdi markaa hadal waxaan siinayaa shuushu soo dhawow inkastoo talisa ay fiicneed shuushu soo dhawow waxaan horta dadka dhan way wada hadleen waxaan jeclaan lahaa waqtiina aniga sababtoo maanta dhin soo qabaan ku dhahayaa jirta safiina aad iraadad u mahadsantay intaad soo qabatay horta arrintan si fiican intaan ka ogaan u galayaa aniga farxiyana waa inanan walaalanahay saaxiibna nahay mubaarak waa saaxiibkay idinkuna waxa weeye reere islaamiyada soomaalidu waxaa la yidhi waxaa loo dirsanaya sidaas faraha ula galan weligiinba ma fahmaysin laakiin qof walba kursigiisaa ku fadhiisay inta aanan hadlin ka hor xamdiyey inaad irmacaanto aad iyo aad iyo aadan uga xumaha waxaad caawa ku hadashay waxaad ku hadashay aad baan uga xumahay farxiyo weynaanteeda iyo yaraanteeda iyo ejkeeda iyo maxaa la dhahay to nolosheedana maanta cid taqaano halkaas ku jirta inay jirto uma malaynayo oo aniga iga aqoon badan laakiin aadan uga xumaa waxaad ku hadashay been kuma sheegayo caadankaaga niyad walaal waa fikirkayga hadda iska daa waa fikirkayga ku soco fikirkaaga adigu markaan kasoo tago suldaano horta meeshaanad soo furtay waxaad falanqaynaysaa walaal xamda dadkii oo dhan xamda war xamda waa dadkii oo dhan ka dhex baxday ma isaa ma fikirkaaga dhiibo ka bacdi iyada hadda wax ku hadashay fikirkayga ay dhiibatay bes intaas oo qor inaan dadku way hadlay inaad anigu xamdadan teeda ka hadlay xamda aniga wana qana oo walaashay qaladkeedana waa inaan u sheegi karaa waa sinaya ku soco waaya laakiin waxaad diidanahay qofka ku soco walaashay aniga khalad bay igu qabanaysaa laakiin gabadhan dadka aflagaadaynaysa talisan u jawaabayay khaladkeeda uma muuqdo ku soco okay ما يتلسنا قالت كده ولو شيء جيا لكن برضه حمد مركه أنا قاعدان كواقنا إلا تلسنا ما تما قانا تيجي هرتي ماده قاعدان كواقنا تاسا كوجو شيء جيا هذا إن هذا الهرتا ناكتي اللي هذا فرحية أحمد عداوي صاحبا لا هاي تلفون كي أنا كوعد 24 hours الله حد فرحية وقف عافماد قام مسكحي تمام تحس كذي مسكحي تماما كو جرسة مبارك هلا واسمع قال متى صومالي مريولة يي عنصريات دي عين كبلانتي دينتي إن العنصريات كجب حدا نتقو ستاني مباركنا وويل أقلمه أو ولال كذا علف إلهي سبحانه وتعالى السوق دارين نسيب كذا يعرف كذا أنا فرحية كحيل هالكاس مبارك فرحية هرتن مو جرسدي ها وإحنا دويدين فرحية هرتن لبقى بدو قوي أو فنانين هاجرتي ما أيقو محل ده ما يسحرناين مسوي حنوسناين مسافر ويكفي عينهن إيش هيك شادي شرف وسوق وحبا عاونوا ما قرني فنانين إن بدنا كم يدوان نسكو في عنا صاحبان